Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada channelkeena ummadda. Maanta waxaynu joognaa waddankaasi Kuwait. Waqtigu waa 8-maadkii. Reerka kooban 6 qof waa hooyo, aabe iyo 4 caruur ay dhaleen. 2 yaryar iyo 2 waaweyn. Reerka Ilaahay hanti waa siiyey oo maasha Allah Ilaahay hanti waa ku irsaaqay. Laakiin horaaba loo yidhi adduunyadu waa 9 ma dhamaystirna. Dheeli way ku curato markaad dhinac ka awdaba dhan kala bannaan oo qabyaday la daris tahay. Yacni gabadhu waxay u baahatay shaqaale. 8-maadkiina aad ayay u adkayd sida loo helo shaqaale khaasatan dadka Bagastaaniyiinta ah. Kuwait mamnuuc ayay ka ahaayeen. Waxa dhacday inay odaygeedi ku soo celceliso mar walba shaqaalaan u baahanahay shaqaale ii keen. Odaygii dhowr joor ayaa wuxuu aaday xafiiska shaqaalada laga dalbado oo yacni shaqaalu iskama imanaya xafiisya laga dalbanayaa. Waxa dhacday maalintii dambe ayaa wax lii gabadh baan haynaa. Gabadhu waxa ay ka soo jeedaa Kashmir, waa gobol ay isku haystaan Hindiya iyo Bakistaan xuduudka ku yaala. Odaygu waa keenay maasha Allah gabadhu keena quruxda Ilaahay qurux u dhammaystiray. Dumarka Kashmira waxa la sheegay inay yihiin dumarka adduunka kuwooda ugu quruxda badan. Waxa dhacday inay islaantii hinaasto guriga lahayd oo tiraahdo anigu ma shaqaalan ku dirsaday wax ku naagaha ugu quruxda badneed soo kaxayso. Odaygu wuxuu taa quraan hayaa. Waxa dhacday in ay guriga ka shaqaysay way shaqaale aad ay ugu baahnaayeen. Waxa dhacday quruxda waxa u dheer faraaba iska qaadimayso gabadhani 24 hours indhaha kuushu kama badagto. Cadarku jirkeeda kama faaruqo, timaheedu 24 hours waa taagan yihiin. Yacni dariskii baa xitaa yaabay naagta sidan quruxda badan sidan isku hagaajinaysaa mindhaa ninka kaala baxday. Iyaduna xitaa ninkayga waa ku kalsoonahay. Show mindhaa inta leedahay ninkayga waa ku kalsoonahay inay ninkiya naagta hoostiis yacni xiriir ka sameeyaan. Waxaan maqli jiray nin waraabe ari raacsado arad ku sii daayay afka miyuu ka xidhiso markuu eega cuni maayo. Maanaan garan in cadarkan iyo indhakuushan ay ka dambeeyaan nin la iskala baxo. Xaasku waa shaqo tagi jirtay. Shaqadeedana markay ka soo noqotay gurigeeda maasha Allah caruurteedii oo joogta bay u iman jirtay. Waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in ay xaaskii gurigaas timaado gurigu yacni sanqar ma laha. Cidi dhaqdhaqaaqi mayso wax maanta guriga xaggaa laga wada aaday. Maxay qolaalkii bay baadhay kajadii bay gashay. Hal qol baanay baadhin oo qolkii caruurta ahaa. Markii guriga intii kale soo wada martay wuxuu timi qolkii caruurta. Qolkii caruurta ay furtay qaylay kaga taagtay. Waa dhacday. Ninkii oo shaqadii ka yimi ayaa isaguna maxay ahaytoy soo galay gurigii sidiisi lamid cid hadli mayso. Qolkii caruurta markuu u hor istaagay isna qaylo bilaabay. Dariskii baa soo orday. Dariskii waxay arkeen caruurtii gowracan. Yaab caruurta maxaa gowracay? Booliskii baa loo wacay. Reerkii koomay galeen. Islaantii hadba waa ka soo kacay waa ku noqonay. Odaygii sidaas leeg boolisku waxay yimaadeen inay odaygu markuu soo kacay bal hadda noo waran iyo guriga idinkula noolaa. Guriga wax nagula noolaa yacni shaqaalada iyo caruurtayda. Shaqaaladii baa la baadhitaan la galay. Safaaradii baa la tagay Bakistaan ku taali Kuwait. Wax la yiri gabadhaas hadday timaado soo qabta iyadoo isla waddanka ka baxo la soo qabto loo yeeray. Wax la yiri maxaa caruurtan adaa dilay Soomaha anaa dilay maxaad ku dishay? Waxay ninkan horta xiriir baa naga dhaxeeyay. Xiriirkii sidoo nogala dhaxeeyay ayaan markii dambe wax nogaaday inuu khiyaamayo aanu iga guursanayn. Ana xasirsaad kaga arkoosata caruurtiisi baan gowracay. Xasbiyallahu wa ni'mal wakiil. Argoos ayay ka ahayd intaasina. Qisada halkaa ayay noogu eg tahay. Waan rajeynaa inaad ka heshay. Channelka ku soo biir, share dhe, videoga like to isagu wax laga hadlo maaha. Commentigan xagga hoose noogu soo reeb. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.